السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كورسكي نوتريشن كاها aan ku soo guda jirnay marka maanta waxaan bilaabaynaa chapterkii ugu dambeeyay ugu weynaa ee hadafka ka lahayn inaan nutrition ka dhigno kamid aha malnutrition nafaqa daro marka waxyaabahan ka hadli doono waxa kamid ah inaan ka hadalno waxyaabaha sababi karo marka waxyaabahan ka hadlayno waxa kamid ah what is malnutrition labo types of malnutrition waa imisa ayaa loo qaybiyaa malnutritionka what are the causes of malnutrition waxyaabaha keeni kara ama sababi kara what are risk factors waa maxay risk factorska ama waxyaabaha risk ugu jira qofka inuu malnutrition uu noqdo halka dad kale aysan risk ugu jirin marka iyo ugu dambeyn how to assess malnutrition sida loo assess gareeyo intaan ayaan ka hadli doonaa 10 slides ka soo socda kadibna waxaan ka hadli doonaa management sida loo manage gareeyo oo kala duwan ayaan ka hadli doonaa malnutrition by definition waxay ka mid tahay the leading cause of morbidity and mortality in children waxyaabaha morbidity-ga ku keena carruurta ama mortality waxa la yiraahdaa waa dhimashada qofku uu dhimanayo morbidity-na waa xanuun marka malnutrition waxay ka mid tahay carruurta weyna dishaa xanuuno kalena way ku keentaa marka may be due to waxa keeni kara malnutrition waxa la leeyahay laba qodob ayaa aasaas u ah improper or inadequate food intake in qofka cunada uu qaadanayo uu qaato cunno ku filan aan iraahdo cunada qofka uu qaadanayo ay cunadaasi tahay mid aan ku filnayn labo ama absorption of food cunadii qofkii uu qaatay in ku filan laakiin absorption ayaa jirin cunada si fiican jirku uma nuugayo marka si easily ay qofka uu jirka kaga baxdo laakiin hadii diarrhea qofku uu shumayo oo kale ama hadii waxaas jiro oo kale marka malnutrition waxaan niri waxyaabaha ugu badan carruurta u dhintaan maybe waxay noqon kartaa cunadii qofku cunay ay tahay cunno yar ama absorption aan jirin sida qofku markuu maxaa la yiraahdaa uu shumayo oo kale marka types of malnutrition laba ayaa loo qaybiyaa mid waa under nutritionkii way hooseysaa qofkii intii looga baahnaa uu ka yareeyay midna over wuu dhaafay marka waxaad ogaataa mar walba waxa wanaagsan normalka haddii normalkii qofku ka hoos maro waa under nutrition nafaqa daro ay haysa haddii uu qofka over nutrition uu noqdona still waa malnutrition marka under nutrition waxa hoos imaanay laba qaybood protein energy malnutrition oo BEM la yiraahdo wax badan waan ka hadli doonaa iyo micronutrient deficiencies qofkaasi micronutrients waad garanaysaa si fiican waan ka soo hadalnay in macronutrientskii ama qaarkii trace element iron zinc iyo iodine oo deficiency inuu yahay ama vitamins inuu deficiency yahay mar walba nutrition labada ayaa hoos imaata protein energy malnutrition iyo micronutrient deficiency iyo overnutrition qof obesity inuu noqdo ama chronic disease qofka inuu ku dhaco kale like diabetes hypertension intaas waa overnutrition hadaba cause of malnutrition maxaa keeni kara laba ayaan u qaybeynaa mid waa primary causes midna waa secondary causes primary cause markaan leenahay qofkani nutritionkani waa number 1 kaasi ayaa keena leenahay primary nutrition secondary-na qofkaas shayga cudur ku dhacay tusaale ahaan cudurka ayaa keenay malnutritionka marka tan waa secondary marka primary nutrition waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah failure of lactation in qofka loo guul dareysto ama aan lactation loo sameyn naasnuujin aan loo sameyn qofku markuu dhasho aan naasnuujin loo sameyn ilaa iyo maxaa la yiraahdaa intii sano uu gaaray intii loogu talgalay caanaha hooyada loogu talgalay qofka uusan helin wuxuu risk ugu jiraa ama wuxuu yahay qofkaasi primary malnutrition sidoo kale ignorance of weaning in laska ignore garay weaninga weaning waxaan ku tilmaanay by the time qofku 6 months uu gaaro ilaa 6 months waxa la siinayo qofka breast milk hooyada naaskeeda ayaa la siinayaa waxa la yiraahdaa exclusive breastfeeding caanaha hooyska oo baraxan ayaa la yiraahdaa oo waxba lagu darin laakiin 6 months markii la gaaro qofka wuxuu u baahan yahay breastfeeding in loo wado balaas in loogu daro cunada xaafada ay cunayso cunada yaryar oo kale in loogu daro ayaa loogu talagalay that's weaning ayaa la yiraahdaa marka haddii weaning waxaan isla fahnay 6 bilood qofku markuu gaaro waa in caanay hooyada loogu daraa cunada xaafada waa in loogu daraa mar qofka hadii la iska ignore weaning 6 bilood qof uu joogo ama 8 bilood uu marayo oo kaliya breastfeeding la siiyo kuma filna caana xilliga la joogo marka qofka malnutrition uu noqonaya poverty ayaa kamid ah
buffert waad garanaysaan cidna looma sharaxayo marka haddii areadaasi buffert ay ka jirto ama faqrino meesha ay ka jirto waa primary cause uu noqdo waayo buffert hadduu jiro number 2 waxyaabaha keena malnutrition waxaa ka mid ah qofkaan cunno ka filan uusan qaadan marka buffertiganaba waa cunno la'aan marka cultural pattern waxaa jira culturally maxaa la yidhahdaa dhaqanada meelaha qaar ka jira tusaalehaan maxaa la yidhahdaa in xaafadda oo kale qofka yar ama in waxba markuu dhashaba oo kale aan caanihii hooyada la siin caanada lo'da ama ariga la siiyo oo kale ama ilaa iyo hadii some cultural pattern dhaqamada qaar taasi waxay keeni kartaa in qofka uu noqdo primary malnutrition uu noqdo ama lack of immunization and primary care qofka aan wax immunization ama wax talaal la siin iyo primary care uusan helin marka immunization haddaan la siin waxay ka dhigan tahay some infections ay risk ugu jiraa that infections waxay keenayaan secondary malnutrition keenayaan laakiin haddaan qofka immunization la siininba primary malnutrition ayaan ku dareynaa marka cause of malnutrition laba ayaan u qaybinaa primary cause waxaan ula jeednaa qofkaasi directly malnutritionka ayuu noqday sababtuna intaas ka mid ah ayay keeni karaan ama secondary cause waxaan idhi qofka malnutrition marka hore kuma dhicin wuu fiicnaa infection ku dhacay then maxaa la malnutrition ayuu noqday qofka ama congenital disease cudurro uu ku dhashay waxay ku liid gareeyeen malnutrition ama malabsorption ayaa jira oo wixii qofku cunaba aan jirka uusan nuugeyn malabsorption waxaa keeni waxaa ka mid ah gaardiyaas oo kale haddii uu gaardilambi ama goryaan qofka calooshiisa ku jiro lactose intolerance dadka qaar ayaa jira lactose waxaa la yidhahdaa waa caanaha laga helo sokorta laga helo caanaha marka qofka haddii taas intolerance uu adkeysan waayaba ama uusan nuugi waayaba waa malabsorption ayaa keeni karta in wixii iska gudbaan aan la nuugin celiac disease ka mid ah TB ka mid ah TB of the intestine iyo cystic fibrosis iyo metabolic diseases waa cudurro badan intaan la secondary cause way keeni karaan marka risk factor malnutrition waxaa ka mid ah waxyaabaha riskiga qofkan inuu risk u galo ama malnutrition u noqdo waxa keeni kara iyada waxaan u qaybinaa social in xagga bulshada ay tahay ama maxaa la yidhahdaa medically qofka uu xanuun la soo wajahay ay tahay xanuun uu soo wajahay social markaan leenahay waxaa ka mid ah kow mother il hooyada ayaa xanuunsan working way shaqaysaa ama incompetent suurtagal ma ama kuma filan inay naasnuujin samayso father il ama aabaha ayaa xanuunsan ama unemployed waa shaqo la'aan inta malnutrition way keeni karaan waayo haddii hooyadiina ay xanuunsan tahay oo kale ama fatherkii unemployed uu yahay meeshii waxay u muuqataa inaan waxda foods badan aysan jirin taas kadibna risk wuxuu ugu jiraa kaa yar inuu malnutrition noqdo parental loss waalidiinta haddii la waayo oo either death ama way dhiman karaan weysmada waxaa ka mid in la waayo death inuu dhimasho inay timaado ama divorce inuu yimaado ama separation maxaa la yidhahdaa in kala meelo kala duwan ay joogaan oo kale ama sababo amni ha ahaataa sababta waxay doontaan noqotee waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha riskiga keenaya dhanka socially more than 2 children under 5 year old in caruurta xaafadda in ka badan 2 caruur yaryar oo under 5 ay joogaan ama large family size xaafad aad u ballaaran oo cuntadii la isgaari waayay oo kale waa suurtagal ama medically ayay suurtagal u tahay oo nutritional ah medically waxay keeni kartaa qofka oo kan yar oo malnutrition ugu jira inuu markuu dhalanayo low birth weight oo ku dhashay maxaa la miisaankii lagu dhalan jiray in ka yar ama twin inay mataani yihiin mixed feeding delayed weaning oo kale oo weaning dib u dhacdo weaning waan soo sheegnay in 6 bilood qof markuu maray on caanaha hooyada cunno loogu daro marka in dib loo dhigo inadequate weaning oo kale ama chronic ama recurrent diarrhea mar walba diarrhea shuban soo laabta waayo shubanka wuxuu keenayaa malabsorption oo wixii dhan uu dhaafsiinaya iyadoon la nuugin wixii nutrition qofku uu tuuraya ama recurrent respiratory infection soo laabta measleska waxaa kaloo ka mid ah some virus measleska oo kale qofka jadeeca ku dhacdo TB oo kale whooping cough oo gowractada recurrent otitis media pneumonia qofku otitis media ama pneumonia oo foreign ka soo noqota incomplete vaccinationkii ama talaalkii qofka uusan dhammaystiran وبالله التوفيق